habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh qodobada aan caawa idin hayna waxa kamid ah Puntland ayaa sheegtay inay duqeysay warshadii qaraxyada u sameyn jirtay kooxda Daesh maxay Puntland uga dhigan tahay warbixinteena ayaa ku arki doona sidoo kale xildhibaan Sanyare oo ka tirsan golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag u hadlay dagaalka Puntland iyo Daesh fariin adagna u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka warbixinadan oo faahfaahsan daawada inta kula wadaagin waxa marka hore ka codsanayaan YouTube-ka ay ku soo biirto subscribe dhaxda muuqaalka like noo saarto gambareelkana furato si ay ku soo gaaraanin warbixinada maalinlaha ee halkan ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya duqeymo ay xalay abaaro 9kii fiidnimo diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamka ee Puntland ka taageera ee soo afjarida kooxda Daesh ay la beegsadeen kooxda Daesh ayaa la sheegay inay burburiyeen saldhigyo muhiim u ahaa kooxda Daesh deegaanka Shabaab oo kamid ah saldhigyada ugu waaweyn ee kooxdu ku leedahay buuraha Calmiskaad ayaa la sheegay in saaxiibada caalamka ee dowladda Puntland ay duqeeyeen sidoo kale Puntland ayaa sheegtay in halkaasi kooxda lagaga burburiyay warshadii ay kooxdu ku sameysan jirtay qaraxyada ay u maleegto dowladda Puntland iyo sidoo kale shacabkeeda iyo ciidamadeedaba kooxda Daesh ayaa wax ugu badan oo isticmaali jirtay muddadii uu socday howlgalka Hilaac waxa uu ahaa miinooyin ay dhulka ku aasto iyo sidoo kale qaraxyo ay ku soo xirto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn taasoo hadda u muuqata inay soo xidhmatay maadaama laga burburiyay warshadii qaraxyada u sameyn jirtay kooxda waxaana la oran karaa waa guul weyn oo ay gaareen ciidamada difaaca Puntland tanina waxay fududeyn kartaa in kooxda maalmo kooban lagu soo afjaro maadaama dhufaysyada ama difaacyada ugu adag ee kooxda ka celin jiray ciidamada Puntland ay ahaayeen qaraxyo iyo sidoo kale miinooyin ay dhulka ku aasto kooxdu goobaha ay saaxiibada caalamka Puntland ay xalay duqeymaha ka geysteen ayaa lagu kala magacaabaa halka uu ku dhamaado Toga Jacayl oo asbuuci hore ay ciidamada Puntland ka saareen kooxda waxaana la sheegay in kooxdu halkaas ay ka waday dhaqdhaqaaqyo iyo inay isku aruursanaysay sidoo kale duqeynta kale ayaa ka dhacday godka Malabay oo ku yaala inta u dhaxaysa deegaanka Gaatir Oodan iyo Shabaab waana mid kamid ah saldhigyada iyo kaydadka ugu waaweyn oo ay halkaas ku leedahay kooxda argagixisada ee Daesh dhanka kale xildhibaan Sanyare oo kamid ah golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxda Daesh ayaa sheegay in Puntland ay guul weyn ka gaartay dagaalka kooxda waxa uu sheegay in kooxda Daesh iyo shacabkii Puntland la kala saaray kooxdana hadda ay ku go'doonsan tahay buuro cidla ah waxa uu sheegay inay taasi tahay guul weyn oo ay ciidamada iyo sidoo kale dowladda Puntland ay gaartay sidoo kale xildhibaan Sanyare waxa uu sheegay in kooxda ay halkaasi muddo ku diyaar garoobaysa ayna adag tahay soo afjarida haddii aysan Puntland helin cid dagaalkaasi ka caawisana uu dagaalku dheeraan doono dowladda federaalka Soomaaliya ayuu ku eedeeyay xildhibaan Sanyare inay ka gaabisay ama ay buuxin weyday aan dhahe kaalintii ay ku lahayd dagaalkan ayna Puntland kaligeed ku tahay dagaalka ay ku jirto kooxda Daesh oo uu sheegay inay tahay koox argagixiso ah oo caalami ah sidoo kale shacabka Puntland ayuu xildhibaanku ku amaanay doorka muuqda oo ay ka qaadanayaan dagaalka waxa uu sheegay in shacabka Puntland ay iyagu bixiyaan wax walba oo ay cunaaneen ciidamada Puntland raashin biyo hilib iyo wax walba oo cunto ah ayuu sheegay in ay la garab istaagan yihiin ciidamada difaaca Puntland waxa uu sheegay in haddii aysan Puntland shacabkan haysan lahayn uusan dagaalkan halkaas soo gaarin oo fashilmi lahaa daawada haddii halkan nala soo gaartay waxa ka codsanayna YouTube-ka ay ku soo biirto subscribe dhaxdo muuqaalka like noo saarto gambareelkana furto si ay ku soo gaaraanin muuqaalada maalinlaha halkan ku soo gudbino